كافة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين المنان ذي الضول والفضل والإحسان الحمد لله الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا والسلام عليكم تحية مني تسف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم فسلاما رقيقا وحبا عميقا وترحيبا أنيقا قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نجتمع لنظهر الفرح نجتمع لشكر الله جل وعلا فهذا هو أجل ما يحتفى به وأعظم ما تقر به العيون وتفرح به القلوب وتسكن به النفوس وتسعد به الأرواح كتاب ربنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا فاللهم انفعنا بالقرآن وجز عنا مشايخنا خير جزاء وجعلنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مدرسة waxaa la furay oo waxa weeye la aasaasay 19 bishii koobaad 15keedii
ayaa waxa weeye la furay 2019 ayaa waxa weeye la furay oo waxa weeye ay bilaabantay ardayda waxa weeye dhiganta waxa weeye ardayda waxa weeye lagu bilaabay kulay waxa weeye markasta oo waxa weeye ardaydu ama waxa weeye duruufo iska farabadnaadaan oo cid waxa weeye u samirta ayaa waxa weeye iska yarba marka waxa weeye cid waxa weeye u samirtay waa kuwa waxa weeye aynu maanta waxa weeye qalin jabintoodii waxa weeye aynu u joogno ardayda waxa weeye maalinta qalin jabinaysa waxa weeye aynu u fadhinaa waxa weeye 7 arday weeye 7 arday oo waxa weeye isku jira waxa weeye inama iyo hablo madrasadan waxa ay waxa weeye soo martay oo waxa weeye ay dheer tahay waxa weeye madrasadaha kale waxa dhigta waxa weeye ardayda waxa weeye miyi ay waxa weeye ka timaada ardayda waxa weeye maanta qalin jabinta waxa weeye ku jira qaar waxa weeye kamida waxa weeye miyi ay waxa weeye ka yimaadaan taasuna miyigana oo garaynaa duruufaha waxa weeye uu leeyahay iyo waxa weeye qofka waxa intuu soo socdo waxa weeye waqtiga waxa weeye waqti badan inay waxa weeye uu seegayo oo waqti badan waxa weeye halka kaga lumayo marka waxa weeye waa dadaal waxa weeye aanu dadaalay anagii waalidiinta waxa weeye ardaydan waxa weeye maanta ay u qalin jabinayaan marcaamada waxay dheer tahay oo kale oo madrasadan ay madrasatu sunnah in ay hablo waxa weeye ay ku jiraan ardaydan oo waxa weeye marcaamad kale intii waxa weeye magaalada anigu waxa weeye kuma arag waxa weeye habla qalin jabiye waxa weeye maanta ka roo waxa weeye ma arag waxa weeye magaaladana waxa weeye ardaydii ugu horeysay ama hablii ugu horeeyay waxa weeye quraanka waxa weeye ka dhameeya waxa weeye madrasadan ayaa waxa weeye la gaara waxa weeye sida ayaan waxa weeye macallimiinta kalena kula boorinayna inay waxa weeye iyaguna ay waxa weeye hablaha soo saaraan madrasadan ardaydii hore waxa weeye ka qalin jabiyay inkastoo waxa weeye aynaan TV ka duubin haddana waxa weeye mawla aynu wax ku duubnay maxadada waxa weeye burcaaye waxa weeye dhigtaan waxa weeye secretary ay waxa weeye qaarkood ay dhigtaan ardaydan waxa weeye maanta u joognaa waxa weeye 7 arday oo waxa weeye seen hore u sheegnay habla iyo waxa weeye inama leh kuwa kale waxa weeye ku xiga ardayda waxa weeye ku xigta kuwan waxa weeye waa dhowr iyo toban waxa weeye arday ayaa ku xiga oo qaarkood waxa weeye ay marayaan ay u badan yihiin waxa weeye 15 iyo 18 iyo waxa weeye 17 waxa weeye isku jiraan oo kuwan waxa weeye ku xiga waxa kale waxa weeye ardayda guud ahaan waxa weeye kala sugayo waxa weeye ardayda madrasada waxa weeye dhigatay iminka waa 6 waxa weeye weeyaan iyagoo waxa weeye dhowr iyo 6 ayaa waxa weeye ay qabteen maxadka waxa weeye intii kale waxa weeye qabat marka iminka waxa weeye 6 ayaa waxa weeye dhigtay inama iyo hablaba waxa weeye isugu jiraan waxaan waxa weeye u mahadnaqayaa waalidiintii waxa weeye nagu garab joogtay waxa weeye nagu caawisay waxa weeye ardayda dadaalkooda waxa weeye aad iyo aad waxa weeye waalidiintii waxa ugu mahadnaqayaa waxa weeye gaar ahaan waxa weeye qolada miiga oo Salmaan Xasan iyo waxa ay ka mid yihiin waxa weeye Cabdullaahi Ibraahim oo waxa weeye aad iyo aad waxa weeye ugu sii mahadnaqayo waayo ardaydaas waa ardaydii waxa weeye miiga ka imanayay arday badan waxa weeye ardayda la socotay waxa weeye jaanis uma helin ama fursad waxa weeye uma helin inay waxa weeye maanta qalin jabiyaan taana waxa iska kaashaday waxa weeye waalidiinta iyo waxa weeye macallimiinta ayaa waxa weeye iska kaashaday marka waxa weeye dhamaan waxa weeye waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta waxa weeye nagu garab joogay waxa weeye ardaydooda waxa weeye u faa'iideynayay waxa weeye ayaa waxa weeye ugu mahadnaqaya waxa weeye dhamaantoodba iyadoo waxa weeye mid in loo sheego aan waxa weeye laga gaarsiinayn mahad ay waxa weeye naga mudan yihiin waxaan kale waxa weeye u mahadnaqayaa cid waxa weeye ka soo qayb gashay ayaan waxa weeye u mahadnaqayaa waxa weeye nugula daashay cid kasto waxa weeye nagu garab taagnayd waxaan kasto waxa weeye u mahadnaqayaa cid waxa weeye dhaqaalahooda waxa weeye gelisay halkan waxa weeye dhaqaalahooda u geliyay waxa weeye macallimiinta waxa weeye ka bixinayay waxa weeye waxa ay waxa weeye ku shaqaynayaan waxa weeye muxsiniinta aad iyo aad baan waxa weeye ugu mahadnaqayaa oo waxa weeye odayaasha ama waxa weeye doonaya magaalada waxa weeye horumarkeeda iyo magaalada waxa weeye inay ka soo baxaan waxa weeye magaalada hore u marto aad iyo aad baan waxa weeye ugu mahadnaqayaa waxa weeye ka mid yihiin waxa weeye Xasan waxa weeye Ducaysane iyo Umar
iyo waxa weeye maadhiin odayaasha waxa weeye iyo khadar waxa weeye ilka case odayaasha waxa weeye dhammaantood iyo kuwa kale waxa weeye aan magacyadooda sheeginba aad iyo aad baan waxa weeye ugu mahadnaqayaa waxa weeye midhiini ama waxa weeye waa kuwa maanta waxa weeye aan u fadhino ee waxa weeye aad wada arkaysaan oo qof walba waxa weeye indhihiisa ayaa waxa weeye macallin u ah marka cid kastoo waxa weeye ka geysatay waxa weeye xafladan waxa weeye qiimaha badan ardaydan gacan ka geysatay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye uga baryaynaa inuu waxa weeye miisaanka xasanaadka waxa weeye u saaro waxa weeye janno fardowsana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye ku macsuumo taa ayaa waxa weeye ayaan waxa weeye ku soo gabagabeynayaa macallimiintana aad baa lagu mahadnaqayaa macallin axmed iyo macallin cabdixaafid iyo macallimiinta hawshan ku taagnay ee ka shaqaynaysana iyana waxaan ilaahay uga baryaa ilaahay inuu jawaana kaga abaalmariyo iyaguna ay u samraan dadaalkaasoo kolley wax badan baa dee dhibaatooyin badan baa iska imanaya loo samro loo dulqaato marka insha allahu tacaala aad iyo ayaan ugu badagaadinayaa aan nagu soo magaraasay aniga aan ugu dhiirigelinayaa ilaahana subxaanahu wa tacaala wanaag iyo khayr nagaga abaalmariyo dhammaanteenba waxaan leeyahay aan jeclaan lahaa iyagana halkan inaan uga duceeyo saddexda dhinac ee khayrkan inuu hirkalo biidnillaahi tacaala isu kaashaday oo ah macallinkii ardada iyo dhinaca waalidiinta iyo waxa weeyaan Allah subxaanahu wa tacaala khayr badan ha siiye muxsiniinta madrasadan gacanta ku haya haday tahay gudi haday tahay kuwa maalgeliya iyo haday tahay kuwa dhisay iyo cid kasta waxa weeyaan maal ahaan iyo fakar ahaan iyo shaqo ahaan ka qayb qaadatay Allah subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiinaynaa dambigooda inuu dhaafo khayrka iyo wanaaga waxa weeyaan muuqda ay horena aynu aragnay maantana aynu u goob joogno waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala ku abaalmariyo khayr iyo barakaad adduunyo aakhiraba waxaan leenahay sii dadaala midhiini waad aragtaan iyo waxa weeyaan wanaagii aad samayseen wayna ka maanta goosanayna waa isku daba jirtaa ardada mar baraaba quraanka dhamaynaysa qaar bay ku xigaan waxaan leenahay insha Allah tacaala dadaalkiini dhammaantiin haday waalidiinta tahay iyo haday gudiyada tahay iyo muxsiniinta insha Allah tacaala si laba jibaara si saddex jibaara reercoodana waxaan leeyahay mahadnaq baa inagu waajibay aynu mahadnaqa farabadinno Allah subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaa khayrka iyo wanaaga magaalada koona walba ka muuqda ilaahay inuu noo soo siyaadiyo waxa weeyaan amniga iyo waxa weeyaan noo xifdiyo khayrkan Allah subxaanahu wa tacaala inuu garsiiyana dhammaanteen baynu garsiiyo علينا إن شاء الله تعالى تعبك على سي وضع عرفتي أبدك هلا برباريو على سي برتا علمك إن شاء الله تعالى نحوي المحد كي وينوفرين هاي مدارس مال والبردك صباح يسا والخير كهالهم هالنقو هلن لدلالو جاهلك إن شاء الله تعالى وينكسب حيناي الله سبحانه وتعالى إنكو قرب سنة ينسي دلالو ربنا سبحانه وتعالى وحين ويدي سنة مقالة دينا إنه نقدقو مدينة العلم مقالة علمك لو برتو دد كذا يدتو سنيهين إن شاء الله تعالى لو سو علم دونته وبهذا علمك وحويان iyadoo ka maaranto insha Allah taala ducaad ilaahay u soo saaro intaas insha Allah waxaan kale oo mahadnaqayaa xafladan oo kale de mahadnaq iyo duca weeyaan xaaladeedu waxaan kale oo mahadnaqayaa muxsiniinta malcaamada dhistay jundigoodii iyo hantidoodii iyo maskaxdoodii iyo maalkoodii galiyay al-aanadana wada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aan u sheegayaa in malcaamadii ay muruqooda iyo maaskooda iyo maskaxdooda iyo maalkoodaba geliyeen in lagu najaxay oo horena lagu najaxay imikana lagu najaxay laguna najixi doono waxaan kale oo mahadnaqayaa macalinka Axmed Cabdiraxmaan Shire Yaxye oo malcaamadan waxa la dhisay 2019 bishii koowaad imikana waa 2000 iyo bishii 11aad ardayda horena u aflixiyay ee u najixiyay ee quraanka xifdisiyay imikana 7 arday xifdisiyay ee muddada yar ee khafiifka ardayda najixiyay ee aflixiyay ee quraanka xifdisiyay ee aad arkayseen macalinkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay macalinka oo aan aad iyo aad uga codsanayna hadaan nahay waalidiinta waxaan leenahay ardayda aad aflixisay ee quraanka bartay waxaanu ka codsanaynaa waxbarashadoodii wixii waxbarashadooda inaad wax nagala qabataan ka codsanaynaa macalinkana intaasaan ka codsanaynaa waxaan kale oo aad iyo aad ugu ducaynayaa dhammaan ardaydii qalin jabisay ee hore ee malcaamada ka qalin jabisay madrasatu sunna
iyo maanta ka qalin jebisayba waan u ducaynayaa aad iyo aad baan ugu ducaynayaa boqolkiiba boqol waxaan leeyahay kuwa waalidiintooda kaafiyano ilaahay hayda ka dhigo kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo ehelkooda iyo diintaba anfaca Allah idinka yeelo waad mahadsantihiin macallinkii ardaydan hayay iyo waalidkii iyo qoladii muxsiniinta ahayd ee hawsha markii hore iyadu bilowday malcaamadana dhistay iminkana weli sidii gacanta ugu haya aad iyo aad bay u salaamayeen waxaananu ilaahay uga baryaynaa dhammaantiin saddexdiina garabba waa iskaashateen ilaahay inuu idin waxa ay isku kaashateen ilaahay idin aflixiyo ilaahay ha aflixiyo ardayda maanta waa wax wacan maalin walba ardaydaas way soo baxdaa ardaydaasna tacab bay ku soo baxdaa ilaahay kuwa caynka ku alhaameeyay garansiiyay sadaqada bixiyay ee kuwa malcaamadda dhisay kow ka yihiin macallimiintii gacanta ku haysay Ahmed Abdi Shire kamid yahay Abdi Shire kamid yahay iyo intii kale ee ka qayb qaadatayba ilaahay wax khayr la hasiyo ilaahay wax khayr la hasiyo miisaanka xasanaadka iyo waalidiintaba waxaan ku darayaa dee waa sii socda baan leeyahay qoladii hore ee qoladii caynka hawsha gacanta ku haysay waxaan leeyahay midhihii waa aragtaan ardaydii waa aragtaan maalin walba qaar baa qalin jabinayo diintiiba halkay marayso waa aragtaan khayr baa doonaysayna khayrka Allah idin siyaadeeyay hawsha sii wada waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa ardayda inta deegaanka joogta maalin walba waxa soo siyaadaya ardayda qalin jabinaysa ee madrasadaha ka soo baxaysa qoladii muxsiniinta ahaa ee dibadaha jiray dhammaan iyo gudahaba ee maxadka hawshiisa ku jirtay waxaan leenahay walaalayaal waa aragtaan ardaydii inay macallimiintiisa inay mar walba sii siyaadayso iyagoo ka soo baxaya tuulada iyo madrasadaha maxadkii walaalayaal wax nagala qabto wax weyn ka qabto oo dadaal sameeya ardaydu siday maxadkii u wada gasho oo dhismihii u socdo idinkana intaasaan idinka codsanaynaa marka waan u ducaynayaa ardayda qalin jabisay iyo macallinkii wax baray ilaahay xasanaadka miisaanka ha u saaro ilaahay hayda xafidaan leeyahay ilaahay hayda xafido waxaan kale oo u mahad celinayaa ardayda dadaashay iyo waalidkooda la dadaalay ee saaka qalin jabintoodu aynu u fadhino malcaamaddan waxaa laynoo sheegay waqti kooban inay furnayd arday horena ka baxday oo iminka ay maxadada ku jirto iminkana ay tii labaad dufcaddii labaad tahay insha allahu tacaala waa mahad weeyaan waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaynu garanaynaa iyada oo malcaamadaha la dhigto oo coodan la dee cid malcaamad ka baxday iyo cid xafladda oo dhiga midna aanay jirin waa dhiirigelin way jireen dad qur-aanka dhammeeya laakiin waxaan la samayn jirin dee xaflado iyo ogaal waxaan kale oo u mahad celinayaa macallinka ardayda la dadaalay ee aad iyo aad ugu soo dadaalay ee mardada isku daba jirta qaarra ka saaray intii kalena waday aad u mahadsan waxa kale oo ku xiga oo haddii aan leeyahay aan u ducaynayaa oo u mahad celinayaa cidii dhistay malcaamadda madrasada rag baa dhisay dad baa dhisay muxsiniina markay dhiseenna waxay sameeyeen inay macallinka iyagu ka bixiyaan kharashka ardayda uu wax ku barayo malcaamadii wali gacantay ku hayaan waana dhiseen ilaaha kariimka waxaynu uga baryaynaa in ilaahay khayr badan iyo nimco badan siiyo in ilaahay khayr ugu bedelo iyo janno ugu bedelo ayagana intaasaan leeyahay waxaan ku xijinayaa dadweynuhu waa salaaman yahay waxay soo ajiibeen waxa la yiri qofka saddex ba xaq loogu leeyahay hadii la amro oo loo yeero inuu tago halka looga yeeray khayrka haddaad jinaasada aragto inaad raacdo haddaad maqasho cid baa xanuunsanaysa inaad soo booqato oo u tagto saddexda waa laga rabaa qofka islaamka waa laga doonay taasuna waxa weeyaan way mahadsan yihiin cid kasta oo soo ajiibtay oo imbika halkan timi waa xaflad qiimo leh xafladda intaasan kaga gudbayaa waxaan u gudbayaa ducada oo ardayda kuwii hore ee qalin jabiyay iyo kuwa dambe imika qalin jabiyay shahaadooyinkooda halkan lagu siin doono insha Allah iyo kuwa ku daba jiraba waxaan leenahay ilaahay khayr iyo baraka idin siiyo wax wacan baa barateen adduunyada wax lagu barto wixii ugu qiimaha badnaa baa barateen liibaanteena iyo teena aakhirada waxay ku jirtaa diinta islaamka oo la qaato
ولقوا قاتل طريق رسولك عليه الصلاة والسلام وحبرتين كتابك القرآن كمنسلك يا حديث تبع برتين وحبيدي كمان مقنا آخرية يدون منه وحبيدي كمان مقنا هل كاسي وضع انتينا إمي كان ولي قلن شبيننا هدي داش وددال ديرا داسبس أنا قلنا وحنا بيكون عينينا إن إلهي يدين فضوديو معلمين تولا ليال أرضينا كنت عبتي هدي عبد حافظ عبدي أحمد عبدي شيري كمدي يا عبد حافظ كمدي هاي مقالة انتي معلمين تاسو تيمي آدي يا آد با إنداهو كلا قدي مقالة آدي يا آد با يقول تبعان دين با يكو سو كرديين ولا فائدي معلمين تجرتي النقطة انتي كوريسي معلمين تايا وحي لمدا يعود اللواوغين ميبوسكا رير ميبوسكا ما انتسي إلى تاريخ علماء تاسو تيمي آدي يا آد با وحوين يقو سو كرديين دين تيبا قادي دين baa laga faa'iiday waa loo aado indhihiina ku aragtaa macallimiintaana waxaan leeyahay kulleeba kuwa la mid ah kuwa ka fiican ma jiraan waa laga faa'iido waa loo macallimiinta kuwa jira ha ahaadeen halka macallimiinta ay dadaalka cilmiga iyo faa'iidada leedika faa'iiday kordhiya ku dadaala cid waxba idin fari mayso inta halkaas ka gaaraya muxrisiinta ku tacabtay ee malcaamada dhistay ee dadkan juhdiga badan gelisay واريار يذكر والديسو والديدو عينينا كوي جري هذا وفايدة مدينة قصارين تعبك تعبك أساستين سي كردية وهذا دتكي نبا جلسين دتكي نبا جلسين واللو هذا ودك عندنا كواركاية محرسمين ترى السياسة ولا الكردية تعبك يدالك واقف فايدينو لو واحد كهر آخر يد كهرية كد دالك كردية ووضع ولا فايدي انت اسلو انت ardayda hadii aan soo leexdo ardayda ama ardaan soo leexdo ardayday adeer wala aabaya ama adeer yar wax barta waxa wuxuu barataan dee maanta qof indhaqabiya iyo qof indhalay waa kala wanaagsan yihiin dadka wax bartay mid yar iyo mid weynba waa qof indhaqaba qofka waxba aqoon waa qof indhala intaas ay idinkaga filan wax barta aad iyo aad u dadaalo wala idinku dadaala intaas kaga waayo ma waxa weeye waxaan arki jiray oodan loo yaani malcaamad yar tahay laakiin maynaan arki jirin nimcada maanta aynu haysano ee diinta ku saabsan waxa weeye maynaan arki jirin ilaahay hayno siyaadiyo waxaan leeyahay waxa weeye waa rabcadii labaad baa ka baxday maanta horana qaar baa uga baxay maantana 7 uga baxay waxaan waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay waxaan jazaa khayr baanu leenahay macallinkii soo barbaariyay ee wax u dhigay ee quraanka baray waa u ducaynaynaa waalidka isku taxalluujiyay ee dhinaca qabtay ee wali dhinaca haya haweenka ragga waa u ducaynaynaa waxaan leenahay jazaa khayr lagama daalo diinta sidaa wax weeye u hayaanu leenahay waxa weeye halkan waxa weeye waa munaasabad qaali ah runtii waxa weeye dhalinyarada ka baxday waxaan leeyahay waa nasiibkiina wanaagsan maanta waxa weeye inta dambe ee ka bixi doontana waxa weeye nasiibkooda wanaagsan waxaan leeyahay halka ka sii wado oo ha ka caajisina waalidkana waxaan leeyahay rag iyo dumar haddaan waxbarashada gacanta la isla qaban oo macallinka gacanta lala qaban oo ubadka lala ogaan oo wixii jira lala ogaan oo ka habsaamo lala ogaan oo ka iska meeraysa lala ogaan macallinku waxba ma qaban karo waxaan leeyahay waalidka waar ogaada caruurtu wax waa baranaysaa oo waa ma sha Allah waxa weeye iyaga insha Allah bidnillaahi kariim oo safiica qaadaya waxa weeye caruurta ogaada macallinkana waxaan leeyahay jazaa khayr aad iyo aad baad magaca deegaanka aad kor ugu qaaday magaca dadka magaca dhalinyarada magaca caruurta aad baad kor ugu qaaday halka ka sii wad waxa weeye 100% baan adigana ku mahadsan tahay waxaan halkan u yar gudbayaa hadiya jeer waxa la isiraahaa maaragtay dhowr hor qof oo horena way taabteen muslimiinta waxa weeye halka madrasada dhisay ee qarashka bixiya ee wali gacanta lagu hayo waar faa'iidatiina maydaan khasaarinaha ka caajisina baan u leenahay ama burcaha joogan ama hargeysa joogan ama dibadda joogan muslimiinta waxaan leenahay jazaa khayr
maanta waa daawanaysaan meel kastoo aad joogtaan waa lagu faa'iiday tacabkiinni waa lagu faa'iiday macallinkaa ku faa'iiday ardaydaa ku faa'iiday magaaladaa ku faa'iiday annagaa ku faa'iidnay wax kasta waa ka helna waa ku faa'iidna waxaan leenahay waxa weeye ka sii kordhiya oo ha ka caajisina oo waxa weeye maanta munaasabadda qaaliga waxa weeye qof waliba waa idinka duceeyey kii kacaaba waa idinka ducaynayaa qolada muslimiinta waxaan leenahay waar ha ka caajisina waxa weeye gacanta qabto sii kordhiya waliba sii kordhiyaanu leenahay macallimiinta sii kordhiya oo sii kordhiyaanu leenahay dadka deegaankana waxaan leenahay waar ubadka maanta faa'iidaynu haysana waxa weeye waa ogtihiin waxa weeye maanta waxa weeye madrasadaheenna waa ogtihiin inta madrasadee magaaladaynu ah waxa weeye waa ogtihiin inaynu halkaa ka dhisanayno maxadkii aynu ka dhisanayno waa ogtihiin waxaan leeyahay kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga oodan la jooga meel kasta joogaba waa aan ka qayb qaadano maxadka aan ka qayb qaadano waayo waa ogtihiin ayaantii dhowto 27 baa imika burca loo diray waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ceelka walaadadu inoo keenan bay ka mid tahay boqolkiiba boqol baan waa isku filaanay marra waaxid waa isku filaanay xaqii diinta waxaan leeyahay macallimiintana jazakallahu khayr ka sii kordhiya oo ha ka caajisina waxa weeye mayalka u qabta waalidkan dib ugu noqonaya waalidow waxbarashada caruurta imika in dhaweyto waxa weeye ciyaalka waa laga raystay gacan bira lagu qabtay waalidku waa ku mahadsan yahay rag iyo dumarba hadday yihiin way ku mahadsan yihiin macallimiintu waa ku mahadsan tahay waxaan leeyahay waar magaaladeenna aynu deganahay magaaladu iyadaa kor isu qaada dibad kor loogama qaada iyadaa kor isu qaada waar hadday diinta tahay iyo hadday nooc kasta tahay aan magaaladeenna kor u qaadno waaraan gacanta isqabsanno waaraan wax wada qabsanno haddaan wax la wada qabsan waxba ma hagaagaan waxa weeye xashiiska ugu yaroo mid baa anigoo xashiiska guraya iyima wuxuu yidhi annaga xashiiska xaafadda yada ha ka gurin waa dib u dhac sidaasi waxa weeye aan gacanta isqabsanno aan wax wada qabanno nadaafadda ka shaqayno diinta ka shaqayno waxaan hadalkii ugu gudbayaa caruurta 7 waxa weeye waa ducan ilaahay waxaan ka baryayaa inay ilaahay waxaan ka baryayaa quraanka ay dhameeyeen xabtiyeen ilaahay waxaan ka baryayaa inay ilaahay u siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryaa waalidkii ku tabcay in ilaahay u siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryaa macallimiinta gacanta ku qabtay in ilaahay u siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryaa kuwa muslimiinta ee gacanta ku qabtay in ilaahay iyagana u siyaadiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baynu mahadnaqaynaa ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa oo aan aad iyo aadna ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ee sharfan ee ardaydu ay quraanka ku xiftiday iyo kuwa wadada ku soo jiraba waynu u mahadnaqaynaa marka hore xafladaynu u mahadnaqaynaa iyo aqbalka ilaahay waxaynu kaloo ilaahay aan uga mahadnaqaynaa nimcada faraha badan ee uu ina siiyey ee barwaaqada abaarta ilaahay inaga jabiyey ee ilaahay markaad hareeraha magaalada aad u baxdo ama magaalada dhexdeeda markaad eegto dhowr bilood siday ahayd iyo sidii ay maanta tahay baynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahu mahadda adigaa iska leh nimcada ilaahu adigaana siiyey waxaan kaloo ilaahay uga mahadnaqaynaa dhammaanteen nabadgelyada aynu haysanno haddaynaan nabadgelyo haysan aynaan xafladna qaban karin ardayna aynaan waxbari karin taana ilaahay baynu uga mahadnaqaynaa ilaahu waa kaaga mahadnaqaynaa nimcooyin badan baadna siisay ilaahay baynu uga mahadnaqaynaa mahad kadib haddaan intaa mahadda ku dhaafo waxaan halkan uga hambalyaynayaa oo uga ducaynaynaa macallimiinta kow iyagaa ka ah waxaa laba ah ciddii madariisadan aasaastay baa iyaduna ku xigta waxaa ku xiga waalidiinta waxaa ku xiga ardayda oo dee shaqadii loo diray iyo waxbarashadii loo diray ka soo baxay baa ku xiga marka dhammaantood waa dad fara badan marka la eego muxsiniinta dhaqaalaha bixinaya kuwa haddii alla ka dhigo guddiga ka ah kuwa waxbaraya cid kasta waxaad moodaa inaynu kulligeen dadkaas way wada dadaalayaan dadkaa waynu u mahadnaqaynaa dhammaantood
waayo wax weyn bay inoo qabteen waxtar weyn baa halkan ka muuqda waxtarka iyo tayada iyo tamarta ay geliyeen baynu uga mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ilaahay dhammaantood dadka aynu soo wada xusnay horena loo xuseeyay ilaahay uu barakeeyo ardaydana waxaa la baray ilaahay uu ku anfaco oo ay noqdaan kuwa dadka iyo diinta iyo waalidkood iyo ummadda islaamkaaba anfaca qofku hadduu wax barto ummado badan buu anfacaayo xataa dee innaga inaga baxsan marka kuwaana waxaan aad iyo aad ugu ducaynaynaa inay noqdaan kuwo diinta anfaca wax weyn qabta waxtar leh baynu ilaahay uga baryaynaa ugu ducaynayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin hambalyo xafladdan loo qabtay dhallinyaradan qur-aanka xifdiday iyo kuwa soo socda ee iyaguba jaranjarada ku jira dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo farxadda iyo wanaaggaa waa idinla qabnaa waalidkaanu la qabnaa waalidka qofkiisii halkan soo gaadhsiiyey ardaygiisii inuu qur-aanka xifdiyana isagana waa u mahadnaqaynaayo wax weyn buu ilaahay agtiisa ka helayaa dhammaantiin mahadnaqa iyo ducadaas baan idinla wadaagaynaa aynu wada wadaagaynaa taana intaasaan ku dhaafayaa waxaan kelmad ku dari lahaa deegaankan reer Coodanle waa deegaan aad iyo aad u wanaagsan waa deegaan barakaysan waa deegaan xoolo leh waa deegaan dhaqaalihiisu uu ma garanaysaa dadku dee dhaqaale ma wada haysta laakiin waxaynu ku jirnaa meelaha dadka ugu ladan baynu weligeen ku jirnay dad badanoo dee aan xoolo haysanin way jiraan waa laga yidhahdaan war suldaanku ma xaggoodunbuu eegaya waa laga yaabaa laakiin waxaan ogahay anigu weligiiba reer Coodanle ganacsiga burco waxaan ku haysan jiray meel ganacsi oo istaanka ku taala meelaha ugu dhaqdhaqaaqa iyo gaadiidka iyo ganacsiga badan baynu hayn mar kasta waa wax ilaahay loogu mahadnaqo kelmadda waxaan uga jeedaa halkan maxad baynu ka dhagax dhignay culimada iyo odayaashuba way ka hadleen aynu isu kaashano haddaynu nahno qurba joogoo qura aynu ku hadlayno dee waxa laga yaabaa inay dhinac laangare ka noqoto aynu ka wada qayb qaadanno oo haddaynu sanadkan sakooyinka xoolaheenna oo dhan soo ururino ila meel ka wanaagsan laguma bixinaye haddaynu sakooyinka soo ururino aynu isu keenno iyagaaba inoo dhisaya wax badan inoo dhisaya waxaan leeyahay maxadkaana ardaygu hadduu qur-aanka dhammeeyo uu maxad waayo waxa laga yaabaa inuu waxbarashadiisii lunto meelo kale kuwa la geeyaa ay anfici weydo waxayna ay gaabiyaan marka taana waxaan leeyahay waxaan ku taageersanay qolyihii hore ee arrintan ka hadlay aynu wax ka qabanaan leeyahay dhammaanteen innagoo isku duuban waxaan kaloo kelmad kale ku darayaa maalin horena qolaa qalin jabisay iyaguna sidan oo kale maxad iyo qur-aankaba dhammeeyey waxaan odhan lahaa oo macallimiinta magaalada aan odhan lahaa idinkoo magaaladii wax weyn u qabtay waxtar muujiyey tayo diineed muujiyey waxqabad muujiyey markaad qalin jabinaysaan ardayda magaalada joogta ee diinta dhigata iyo macallimiintaba isugu yeedha haddaydaan meel ku wada qalin jabinayn dee maalintaa ka wada qayb qaata oo maxadka aan ardayda aan qalin jabinayn inta kuwa kale leeyaha maanta noo fasax dee midnimaha lagu qalin jabiyo oo qoladan qalin jabisay maanta kuwa kalena ha loo keeno oo haddii alla ka dhigo dee waxa taraan oo hays eegtaan oo ha laga farxiyo marka waxaan leeyahay taasna ku dadaala oo kelida ka daaya midnimo aan halkaa ka muujinno haddaan midnimadu diinta ka soo bixin xagga kalena kama soo baxayso markaana kelmaddaana intaasaan odhanayaa waa dhammaantood maaha qoladanoo qura maaha dhammaantood baan leeyahay ha la isu yimaado maalintaana waan tabayey waana laga hadlay maalintaa qura in laga hadlay baan u malaynayaa maalintaana taasuna waa intaa ta kale waxaan leeyahay dee waxgaradkii magaalada halkan jooga iyo madaxdii magaalada rag iyo dumarba mudan iyo marwoba deegaanadeenna waa lagu soo guuro dee dad badan oo martiya oo ehela oo gacala oo walaalaheena oo kuwaynu wada dhalannay
iyo kuwo kaleba waa inala joogaan iyagana dee hala marti soor oo hala soo dhoweeyaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay halkan dhaqdhaqaaqyaa ka bilaabmay maalintii dhoweyd meeshaasuna taataabad may lahayn runtii dariska inoo aynu walaalaha nahay wixii inaga dhexeeya ama wax dawladii meel dhigtay ha noqdo ama waxaynu meel dhignay ha noqdee taana waxaan leeyahay odayaasha faranay dee waa in taana la ilaaliyo oo wax laga qabto oo la iskaasho waxaan kaloo leeyahay xilliga barwaaqadu markay dhacdo guuxyadu way iska bataane aynu isu nimaadno tala meel ha la dhigo tala odayaaleed oo fadhida oo macno leh oo aynu daris kale kula noolaanno innaguna aynu ku noolaanno odayaashana waxaan leeyahay intaasaan odayaashana aan odhan lahaa waan badiyaan u malaynayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa xafladdan quruxda badan hambalyo sii kordhiya ardayda waxaan leeyahay sii kordhiya